aqoon-yahanku waa ayo waa su'aal mujtamacu inay isweydiiyaan u baahan waa ayo aqoon-yahanku ma nin laabtoog iyo warqada ku raran oo qaab gaara u labisan baa ma aha aqoon-yahanku sida aqoon-yahanku waa ninka ilaahay iyo rasuulkiisa af yaqaana kaasaa aqoon-yahan ah ilaahay nimaan af aqoon oo qur-aanka aqoonin rasuulkana af aqoon oo sunnaha aqoonin aqoon-yahan maaha kaasi qur-aanka bal u fiirso aayadda dadku inta badan xagga dambe ka soo qaataan laakiin xagga hore in lagu soo xidho ayaa wanaagsan amman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhirah wayarjuu raxmata rabbih qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun ummaddu inta dambe aayadda soo qaataan ilaahay muxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala mid habeenkii taagan saacadaha habeenkii intuu kaco weysaysto buu ilaahay ishortaagaya ummadoo huruda oo jawigu degan yahay mar waa sujuudsan yahay marna waa taagan yahay mar qur'aan buu akhrinaya mar waa ducaysanaya mar waa wardinaya saasaa salaaddii subax ugu soo gelaysa yaxdaru alaakhira aakhiru ka digtoon yahay wayarjuu raxmata rabbi rabbigii naxariistiisana waa rajaynaya arma ilaahay ku cadaaba arma ilaahay ku cadhaysan yahay arma xisaabtu kugu adkaata alla hortii baqdin baa ku jirta xagga kalena waa dadaalaya waa camal falaya wixii taalkiisa waa shaqaynaya ma u jeedaa markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay miyay sima yihiin kuwa sidaa u dhaqmaya ee wax garanaya iyo kuwa aan waxba garanayn maalin baa waxaan soo galay meel biibita ah ama macmacaan le waxaa igu soo galay nin barfaysar ah oo aqoonta maadiga heer sare ka gaaray khaasatan ku takhasusay itisaalaadka waxyaabahan xidhiidhka warsgaarsiinta centerlightka ilaa intaa isku xidha PhD ku qaatay baa igu soo galay markaasuu hindhisay markaasuu wuxuu yidhi sorry mar labaad buu hindhisay wuxuu yidhi sorry mar saddexaad buu hindhiso sorry buu yidhi san waxaan ku yidhi marka la hindhiso wax la yidhaahdo ma taqaanaa markaasuu yidhi sorry baan iridhi dad baa meesha fadhiya waa ka dul shanqare waa inaan sorry please idhaahdaa wax kale ma garanaysaa oo la yidhaahdo markaasuu yidhi maya garan maayo da'diisu ilaa 70 madaxa uu geliyey kasaan ku yidhi diinta islaamku waxay qabtaa adeer qofku markuu hindhiso alxamdulillaah inuu yidhaahdo qofka maqlayana yarxamuka allah inuu yidhaahdo wallaahi weligay ma maqal buu igu yidhi weligay ma maqal buu igu yidhi bal fiiri dhallinyarada waxaynu leenahay aqoon-yahanka war hooy maadiga markaa baranaysaan xisada masaajidkana qaata oo tafsiirka ku taxma oo xadiiska barta oo fiqiga barta idinkoo isku macaan xaggana diintii xaggana maadigii ayaa jaamacadda ka baxaysaan hadduu qofku jaamacaadka ka baxo wuu ismahdinayaayo wuxuu isleeyahay madaa masaajid iminka fadhiisan karo oo kitaab miyaad iminka dhegaysan karaysaayo cashar baan raacanayaa iyo arki maysid waxaas waa laakiin inta aad allaahumma qof alla u naxariistay mooyaane sidaas waxaan u baahannahay inuu inoo soo baxo nin dhakhtar ah oo cilmiga dhakhtarnimada heer ka gaaray oo diintana si fiican u yaqaana waxaan u baahan inoo soo baxo nin injineer ah oo diinta ku fiican inuu inoo soo baxo nin maxaan ku idhaahdaa aqoon-yahan ah oo dhaqaalaha ku takhasusay diintana sheekh ku ah nin siyaasadda ku takhasusay diinta sheekh ku ah markaasaa mujtamacu isu dheelitirmaya taasay u baahan tahay arrinta muhimka ah in la ogaado ay fiican tahay sida awgeed fasahaadku marka la eego wuxuu noqon karayaa in uu dayacmo maalka maamulka oo xumaada fasahaadku sidiisaba idaarada iyo maamulka iyo maaraynta iyo fasahaadka maxaa ka dhaxeeya oo cilaaqo ah waxaa la yidhahdaa waxaa ka dhaxeeya caam iyo khaas oo haddii maamulka iyo maarayntu fasahaado maaliyaduna waa fasahaadaysaa oo ile maamulkay ku hoos jirta iyo maaraynta maaliyadii ma dhaqnaanayso laakiin waxa weeyaan qofku haddii maamulkii iyo maarayntii ay xumaato maamulka iyo maaraynta ayaa gudaweyn fasahaadkooda maalka fasahaadka la lunsadana waa jusde ka mid ah oo markaa soo hoosgelaya idaarada iyo waxyaabaha maamulka la maamulo marka la ururiyo waxaa ugu muhiimsan baa la yidhaahdaa
التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة إن وحي لقرشيو لهبيو لإسكحيرو لهجاتيو لإلاليو maamulka iyo maareyntu waa inta marka la isu keeno marka la ururiyo inta soo noqonaya oo si fiican marka loo hagaajiyo fasaadka idaariga ah yani maamul xumada xagga maareynta xilka qofku hayo waxay arintaasi keeni kartaa inuu qofku mas'uuliyadiisa si xun uga faa'iideysto oo makaasib gaar ah uu kasbado oo xilkan uu hayo mas'uuliyadda ama shirkad buu mas'uul ka yahay ama meel buu mas'uul ka yahay meherad iyo bakhaaro iyo xum mas'uul ka yahay ama wasaarad buu mas'uul ka yahay ama dawlad buu mas'uul ka yahay ama wuxuu mas'uul ka yahay wuxuu lamida waxyaabaha umadu ay maxaan ku raada mas'uuliyaadkooda kala duwan waxay keenaysaa haddii maamulkiisu xun yahay iyo maareyntiisu in qofku uu si xun u adeegsado mansibka uu hayo oo hanti gaar ahaaneed ku lunsado oo si gaar ahaaneed cid wax ugu yeeleeyo sida awgeed waxa la laba sababood ayaa fasaadka maaliga ahi fasaadka idaariga ahi uu ku soo ururaya qofku inuu jecel yahay inuu manaafic dheef shakhsiyadeed oo aan sharciga iyo nidaamka jira u banayn inuu ku lumsado maamul xumadiisa mas'uulka ka yahay talabaadu ay tahay inuu xilkiyo mas'uuliyadii uu hayay inuu markaa sidii ay ahayd uga soo bixi waayo oo uu markaa qofkii xilkiyo mas'uuliyadiisii ka cararo oo si fiican uga soo bixi waayo